أهلا فيكم يا أحباب ميل كستا الدنيا الدافئة كشكتان عاو مانتا هاد بكليب كان حلق شو قرأي كحرنته وحميسك إنه صارن أفتاب شفدزاني وقرحلوجي بهوليوود كا أيان مانتا كهرلينا إن بدو بسوي ديسين لكن واحد تاكو قرنيسين أنا وايدين مقانا هاي مروربا وإن لا سعودة سلا إذن كبهاي إلى سعودان إنتان لو حدنا كفا إيديستو أنك جارسيو أصحاب بدن باترادا كونفورتا هنتي iyo aktarada ka soo hadal hay aktaradii way badan yihiin magaciisa qora magacaas aktarka adirshada ka soo hadal asxaabta inta badan dabcan cusiyada ayaa fara badan cusiyada hore inta badan soo noqnoqda ayaa mar walba xoog saara clip kasta aan soo dhigo hadad cusiga igu soo cusboonaysiisid aniguna waxaan ahay midaan markaas aan seegi doono insha Allah taala adbad ma haysantiin ka waxaan u galeynaa aftaab yare أفتاب شفدزاني وعن كي هاي أكتر نمو موديليستي سيدا كل إمكو حنقضي بروديوسر أفتاب إساقو أفر يتهم بلود أوكليتشرا أيا وحا لو دورتاي إن ونقن كارو عرها ير عانها إيو حيسيسكا لغو صبايو هادو أفر يتهم بلود أوكليا يوشرا مركاس عرور بوها عنها لو سوور جرى لو حيسين جرى وحيسقو يربا وقروحديس لا arkay waan isri kadib sidii buu xaysiiskii uu la koray oran karnaa xaysiiskii wax kasta oo yar uu soo xaysiiyay tifiyo badan buu ka soo qayb qaatay markii dambena oo isagu waliba yar oo wali aad u yar xagga aktarnimada wuxuu ku soo bilaabay filmadii Master India Anil Kapoor oo ku jira wuxuu ku jira film kale Chalbas ay ku jira ninka waxaan rahnaa Chesto horta niyo film baa jira anoo yar aan daawaday ma xasuusto macna waxaan ka xasuustaa kaliya inuu ninkaas Chesto yahay oo sigaarka double u shidanayay iyo mid kale aan malayno canjeex yahay oo isna shilinka ka xanaaqa bal filinka magaciisa ila soo wadaag wallahi filinkaas imkan baba xasuustay ninka Chestan ku xasuustay filinkaas khatar baha midna shilin buu ka xanaaqay midna dabku ka xanaaqay ha bal filinka waa raadinayay idinkuna bal hada tawan 10 years sheek okay Chesto Chalbas ayuu kula jiray aftaab yare sidoo kale Shahanshah Amitabh Bachchan ayuu hadan filimka kula jiraa isagoo yar marka aftaabow carruurnimadii ayaad ku soo bilowday xagga aktarnimada xitaa haddana saasay tahay adu filmada aan ka hadlayo waxa way 87kii Master India oo kale de bismillah 87kii 88kii 89kii filmada shah gacanta birta ahayd Amitabh Bachchan macall dheer ama gamac dheer ama wada dheer hadba ka taqaanin iyo filimka kale Chalbas filmadaas oo filmo hore aftaab shifdasani abihi waa Hindu isagu waxa istaa diinta Hinduga la yiraahdo Hinduga laakiin hooyadii ayaa waxay tahay Iiraaniyad hooyadii waxa ka soo jeedaa dalka Iiraan oo waxa weeye yani original ahaan laakiin halkaas ay dabcan ay ku dhaqantay laakiin isagu diinta Hinduga haysta nasiib darayaan oran karnaa aftaab lacagta waxa lagu qiyaasay 8 milyan diintiisa oo sheegno Hindu dhinaca kale hadii la hayday kada leeyahay aflaanta shirkadda Bollywood kasi actor buuxa wuxuu u noqday la markii carnimo ugu jiray markii filimkiisa Masti ee Urmila ay kula jirtay tiyaatarada loo saaray filimkaasna wuxuu ahaa sanadku wuxuu soo baxay 1999kii wali waxa xusid mudan inuu filimkaas laba abaalmarinood uu ku gudoomay Screen Award iyo Season Award oo iyadana oo kaga helay actorka shirkadda Bollywood ka cusub ee ugu wanaagsan sanadkaas waxa cajiiba iyada laftigeeda oo xusid mudan in filimkaas 1999kii marka uu ku guuleystay abaalmarinadaas actorka ka cusub abaalmarintaas shirkadda Bollywood-ka waxa loo yeeray oo gudoonsiinayay Rajesh Roshan abi marka Hrithik Roshan abi waqtigaas wuxuu faraha kula jiray oo filimku uu dhameystirmay ayaan oran karnaa filimkii inankiisa Hrithik Roshan ee Khona Pyar Hai tabadeedna markii la joogay xafladda waqti xaadirkaas goobjoog mu ahayn aftaab oo abaalmarinta mu qaadan karin sida la ajigeed waxa uu qaaday marka xubin ka tirsan TV-gaas markii loo yeeray macna aftaab ee la eegay la waayay buu yiri hadii uu soo doonan waayo aftaab ama cid u qaada aan waayo abaalmarintan waxaan u qaadayaa inankayga Hrithik Roshan
معناها سنة كدنبه لبدا كون بهد عرب كيسابة لا سقم فيلينه عرب كيسابة الله قاضي رجش رشن وإن كيسوا كفيلم كيسي all time blockbuster ونقضي كهونا بيارها إنه بعد ما هين مركا ولي بلي مركا قار واحد مدينة السماض فرنت هاي يا فيلم كاسو أدوكو كولستي مركا دوا فيلم بدن وسميي فيلمada uu guuleystay ganacsi ahaan oo isaguna amaan buuxda ku helay waxa kamid filimkii Kasoor oo kale uu khaayinka waliba abaalmarin buu taasna ku helay laadarnimada abaalmarin buu ku helay sidoo kale wuxuu ku tartamay laadarka sanadkaas oo Filmfare Awards-ka laakiin kuma guuleysan wuxuu kaloo matalay filimkii Hungama sidoo kale wuxuu leeyahay Kaya yahay baarihe oo Amish Patel kula jirtay filimkaasna waa filimkii lama ilaawi karo alla jacayl weynaaye waa filimkii 4 sano iyo aftaab waxaan ku xasuustaa heesa badan oo filimka macaan ku jiray filimkaas inaba caad ma ahayn qof kasto qalbi la filimkaas uu ooyay ma weydaado मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करते थे कोना عاد معين sidoo kale wuxuu la yimi oo isna uu ku helay abaalmarin waliba comedy-ga sanadkaas uu ku helay waa filimkii isaga iyo saaxiibkii Ritesh Deshmukh kii yara qosolka ka yara qosol meedan kayar iyo isaga anu filimka isaga kayar baan isla habal siinay abaalmarinta kayar ba aad si fanisana oo laakiin isaga qaatay abaalmarinta Vivek O'Brien waa ku filimkan kula jiray markii dib wuxuu ku biiray hadana xaqan iyo shirkadda koonfurta filimkiisa ugu horeeyay markaas uu xaqaas uu kala qayb qaatay waa filimka la yiraahdo Bhaskar or Rascal filimkan waa ku jira inkastaanu saameyn laga sii saameyn weyn yahay laakiin hadana filim uu guuleystay uu noqday sidoo kale xagga Canadianka wuxuu ku soo baxay oo filimkiisa ugu horeeyay uu kala qayb qaatay waa filimka la yiraahdo Koti Goba 3 وفيلمكان كوتي كوباتري فيلمكان أيو مثلي أو إسنا لبض كون يقولاتك يا مركز شركة بوليوود كوحنا ران كرنا وكتير هسي عهاته أكتر كان إن بدن أيو حلقو للي عيني أو يعني للها معها أكتر يعني تحسن أكتر صح معها أكتر يعني اختار معها أكتر قدرت ويفلوي وإحنا عسى هسي عهاته اسمه ديبين مرة بدن أو لو ريسني أنت وضينا wuxuu sheegay nolosha gabigeedaba inay iska tahay ma garanaysa khiyaali oo wuxuu yiri markii ugu horeysay filimkayga Masti xaaladii igala kulantay filimkaas markuu ii qarxay kii seerkayga mudanahayga ayaa wuxuu yiri aktarkayga ama yani heroogayga waxaan doonayaa inuu qurux badnaado xafladda markii la sameeyay la soo bandhigay macnaha xayeysiintii xaasib promotion la sameeyay ayaa waxa la yiri ويروح ويجي معنا إن تقرب بالناتو استال نقطة بندونية إنك استوفيني كده حس مستي أسكا شعري يري كرمي الرسكة ضيعنا اسكا عالس كهاي لكن واحد دوني أنا فانتاستيك قد مقتد ويجي رناتي من هيسن نولير العقر ويسكاهت لكن العقر سولك ودوني يسوق يسمن هيسن تو إنه أنا شغال حنقول أنا ما هيست العقر تو إنه إسكا يدبري سيد بحفلتي كتجي وحير أمينة باتشان يبادت كاساتشوجي مركلي أمينة باتشان إيه يربي كليه هاي وير أفتاب كالي بابا نحبا أمينة باتشان هو قرنا يا أوه ماي جاد كشان شاه وكل شيء لكن ده إيه يربي كجت شراء وإنا يربي حفصان كراودك أفتاب بوجيريو ويريو وحشر على سوق وقرنا مركز فين كاس على قوة برتة مستوى على كهلا موقت طبعا ده مركز كالي مركز جروب تتخطروا عان الله يقول وحير عجح يردك كهين واي فرحت ما أديك أيا نوع النقد بوجري ما أديك أيا ما أنت مايكل جاكسون يشارب خاني أمير خاني أمير تبتشاني يا إسكول لا ولا نقطتين وحيروح يقول نقطة وحن عادي سربرايز بيقول نقطة وحن آمن ويقول نقطة جيبي بدتك أن عادي قلها يوم بيشوكي بدلي oh my god أنا كيف يا بآمن ويقولش عن قاري دواني كشاكت أودي لا مركي تبل عقبان هلا قريبان يبسدان قري كلا يبسدان قاري كلا يبسدان قاري معنا وحي نرشي وعويس وفادي كل راح يستيسان عادهن لكن وحي نرشان إيدا به عنتاهو ويكاقات هو إفانيسا سيدك من سيد شرنو مدب مركان ودي وعركا عن مريي أيوم با مركليان مسددك هوسي إيجي مسقيمي هرمليه مسي وهيا إلي يربل يا dadkuna indhaku garaad leh oo filmo badan baa iga guul daraystay
dabadeedna wuxuu yiri waxoogaa waa isweydiiyey waa yar fikray laakiin wuxuu yiri waan kaga adkaaday niyadda ayaan dhistay waxaana idhi yacni noloshu markeeda horeba marna way kaa farxina marna way kaa magaranaysaa kaa xumaanaysaa dhib ma laha sidii baan markaa niyadda u dhistay oo alxamdulilah yacni dee heerarka marka qaar aad gaadhid buu ku leeyahay waxay soconaysaa nafta way isdhaafay sida agtaro badan iyo adirshooyin badan ba ay sameeyeen laakiin anigu taas caqli ayaan u adeegsaday buu yiri nin adag ayaan noqday dhinaca kale waxaa la sheegaa xagga xiriirka shirkadda Bollywoodka hablo badan adoo la iskaga yar dacaydey laakiin aftaab qofta ugu weyn ee lagu dacaydin jiray waxa weeye Isha Deol ayaa la yiri synchronicity isku noqday bashbash isku noqday waana laga garanay inkastoo aan shaacin laakiin mar dambe baa la yiri bal ogaaday hooyadeeda ogaatay doodna u diiday Malina dabadeedna inankaasna waqtigaas guuldaradiisa ayaa badda ahayd dabadeedna waxay tiri uma qalan anyway adigu markii dambe inantan oo helay inantan ayay love isku noqdeen inantan ayay imika guri wada degan ilaa 8 sano wada degan gur farxad leh ayay ku jiraan waana dadka marka lamaanayaasha la tirinayo lamaanayaasha ugu quruxda badan macnaa ugu lagu faani karo jacaylka isku guursaday isku maxabaysan marka iminkana iyada buu yiri ayaa garab siisa oo garab taagan oo xagga producer-nimada oo waka marka aftaab halkaas ayaan ku soo koobaynaa maanta aftaab actor yar oo la iska wada jecel yahay ayuu ahaa samaha ma keeni jirtay asxaabta qiimaha badnayd way la socdaa sida caadada aad baad mahadsantiin